kalsooni kala noqosho lagala noqonayo guddoomiyaha golaha shacabka oo aniga ah ay soo jeediyeen waa xaq ay leeyihiin, waa xaq dastuuri ah, waa arrin xeer hoosaadkeena uu ogol yahay, waa arrin dimuqraadiyada iyo dhaqankaba uu ku dhisan yahay weeyaan, waana ku saxsan yihiin inay keenaan. in laga qabtana xaq bay u lahaayeen, waana la qabtay alxamdulilah. mooshinka asaga ah oo aniga layga keenay waxay ahayd sida laydinku sheegay 107 qof aa saxiixnayd, laakiin waxaa ka noqotay sida la hubiyey 16 qof, 91 baa kusoo hartay, hal qof keliya ayaa ka maqnaaday. haddaba arrintaasi ma aha arrin mushkilad ah, waa arrin u taalla xildhibaanada sida caadiga ah barlamaaniyiinta dhan caalamka dhanba waxa weeyaan waa kala ra'yi duwan yihiin. haddii qofka shaqadiisa xumaato ama maamulka si kale uu ka hadlaado in la iska bedeli karo ama kalsoonida lagala noqon karo waa arrin jirta oo dhab ah, xaq ana in la sameeyo. hase yeeshee waa lagaba maarmaan inaan marna dastuurkii la baalmarin, waa laga maarmaan marna in maraa sharcigii aan cidna loogu turin oo la waafajiyaa. mooshinka asaga ah hal qof baa ka dhinaaday, saa daraaddeed marxaladii koowaad ma uusan marin, marxaladii labaadna looma gudbin oo ahayd in laga hadlo nuxurkiisa. waxaase meeshuu ku haray sida hadda qaanuunka u yahay, guddiga joogtadana ay hubiyeen, guddoonkii isku dhanna meesha ay joogeen qireen oo ay ku baareen alxamdulilah. waxaase xusid mudan ujeeddada ma aha jawaari meesha laga qaado, ujeeddada waxaa weye anigu marinkii waayo oo lagu baabi'in lahaa, in loo fahmo in lagu baabi'in lahaa, lagu burburin lahaa baarlamaanka oo uu noqdo mid aan jirin, ama taariikhdii uu soo maray baarlamaanka 8aad in laga dhigo ayaa cad, in la kala diro golaha shacbigana uu markaa noqdo mid oo aan shaqayn karin, xilkiisana gudan karin. arrinta aan u sheegaya waxay tahay saldhigga dowladda waa golaha shacabka. golaha shacabkaa soo doortay, codkii shacabku ku hadlayaa, heybadda shacbiga lagu cayaaraya qof alla qofkii doonayo inuu golaha shacbigaasi khalkhal geliyo. xildhibaanaanu nahay, ra'yi baan leenahay, waa doodnaa, cod baan ku kala baxnaa. waxaase hadda dhacday oo aan aad iyo aad uga xumahay in lagu kaco in baarlamaankii golihii shacbiga oo ah laantii sharci dejinta ee Soomaaliya oo ka madax bannaan dhammaan laamaha kale, in lagu soo ay xukuumaddii ama laantii fulinta ay weerar ku soo qaaday oo ay mooshiinadan ayada ay daba joogto, oo haddii alla ku rahay ujeeddadana ay tahay in baarlamaankaasi uusan noqonin mid shaqeeya. waxaana sababay arrimo aniga aan diiday inaan saxiixo oo ka hor imanayay nidaamka, mabda'a iyo ammaanada naloo dhiibay. in aan saxiixo aan ka diiday ayaa soo kiciyey arrinta tani. ujeeddada ma aha jawaari meesha laga leexiyey, waa ujeeddada waxaa loo jeedaa waa burburin lagu wado golaha shacabka. dhammaan xildhibaanada golaha shacabka, kuwa mooshinka keenay iyo kuwa aan keenin, dhammaan waxaan ku baraarujinayaa min fadlakum waxsaanakum. jawaari waa qof beritu ka tegi karaa, anigana ma ihi qof kursiga isku dejinaya, qof kursiga marta awoodda ku dhegdhegaya ma ihi, laygumana soo barbaarin. laakiin waxaan walaalayaalow kulligiin idinka codsanayaa min fadlakum waxsaanakum, xildhibaanadiina saa u dhantihiin, burburka ha laga ilaasho golahan. shacbiga idin dhiibtay, ammaanuu idinku yahay, kitaab baad usoo marteen. ujeeddada la rabo in baarlamaanka lagu burburiyo ha la ilaaliyo. xildhibaanow baarlamaankaaga badbaadso. jawaari wax uu ku fadhiyo male, waa shaksi qof weeyaan, xildhibaan khaalis ah weeyaan. laakiin ha la ilaaliyo maxaa la dhahay nidaamka, daahfurnaanta iyo wada shaqaynta iyo ra'yi dhiibashada iyo heybadda aad u yeesheen shacbiga in uu leeyahay gola aad muujiseen tii hore. yaan laga hoos marin, in laga kormaro oo hore loo mariyo mooyaane yaan laga hoos marin. kalsoonida shacbiga wuxuu ku qabaa markay arrimo culus oo siyaasi ay yimaadaan wuxuu idin aaminsan yahay inaad xallinaysaan saad hore usoo xalliseen iyo heerka aad soo gaarsiiseen. waa ku celcelinayaa, xildhibaanow badbaadso baarlamaankaaga. mushkilad ma aha haddaad mooshin keentay, xaq baa u leedahay, laakiin ujeeddada ka dambaysa oo laanta fulinta ay u dan leedahay ha la iska ilaasho. codkaaga dhiibo, xor oo ahaaw, si daahfurnah loo qabto, ha la wado. arrinta kale oo hadda la iisoo sheegay waxay tahay in golihii shacbiga meeshii xaruntiisii ay xukuumaddii la wareegtay, ay ka qaaday dhammaan 100 iyo dheeraadkii ciidankii meesha joogay aqlabka siday oo u tababarnaa difaaca baarlamaanka, in laga wareejiyey ciidamo kale ka amar qaadanaya laanta fulinta in meesha la keenay. dhibaatada meeshaas ka dhacdo waxaan caddaynayaa, haddii wax dhibaato ah ka yimaadaan, aniga
iyo dhammaan markaa guddoonka iyo guddiga joogtada mas-uul kama nihin. waxaa mas-uuliyaddeeda toos u qaadaya ra-iisul wasaaraha oo bixiyey amarkaasi in baarlamaanka lala wareego. taa ayada ah shacbiga ha ogaado, baarlamaankii golihiisii gacantayada kuma jiro, waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha amar uu bixiyey ayuu ciidan meesha ka dhigay. mas-uuliyaddaasi asagaa iska leh, ama ciddii kala dambaysa oo la wadaagto asagaa yeelanaya. ilaa iyo inta haddaan mooshinka ku noqdo, mooshinkaas wuxuu noqday 91, waxaa ka dhiman hal. saa daraaddeed waa mooshin jabay. hase yeeshee isagoo saas sharci darro u ah, waxaan ogolahay in xildhibaanada oo mooshinka soo jeediyey halkii xildhibaan ka dhinnaa inay ku soo darsadaan si haybad leh, daahfuran oo deganaansho leh in loo soo dhigo, golaha la hordhigo, sanduuqa loo dhigo. hadday kalsoonida kala noqonayaan, haddii kalaba meesha ay go-aankooda ku gaaraan si xildhibaannimo ku jirto, xaq ku jiro oo dhaarta ay ku mareen ha la yimaado. laakiin meermeer kale iyo marimo kale oo markaa guracan loo soo marayo golaha shacbiga oo intaasana aan ku soo dadaalnay in shacbigaas uu yeesho, dowladnimadiisa aan dhisno, ma yeelayno in la burburiyo dad ku danaysanaya iyo dan kalena annaga ka yeeli mayno. haddii xildhibaano aad tihiin waa idinku celinayaa, badbaadiya baarlamaankiina, shaksiga iska dhaafa. baarlamaankaas ha la badbaadiyo, shacbiga daraaddiis ha loo badbaadiyo, dowladnimada daraaddeed ha loo badbaadiyo, ha laga daayo ka danaysiga iyada ah. ilaa iyo inta golaha shacbiga ama aniga igu soo celinayo ama mid kale loo keenayo oo aan xilka u dhiibaayo, anaa ka mas-uula. sida uu qabo xeer hoosaadka qodobkiisa 10aad faqradiisa 8aad, ciidanka amniga sugidda goobta, xildhibaanada iyo dadka meesha jooga oo dhan waxaa xilkeeda iska leh habdhowrayaasha ayaa ku cad. habdhowrayaasha markay soo dhaaftaan anaa ka mas-uul ah. waxaa keliya iga reeban qaanuuniyan iyo sharciyan iyo xeer hoosaad iyo dastuur ahaan, arrinta keliya iga reeban ilaa midkaal uu ka imaanaya waxay tahay anigu ma shir guddoomin karo marka mooshinkayga laga hadlayo ama mooshinkayga oo hawshiisa lagu jiro ama loo codaynayo. waa iga reeban tahay sharciyan inaan shir guddoomiyo. markaa waxaa shir guddoominaya guddoomiyaasha kale ama ciddii xildhibaanada markaas ay u garato ayaa sharcigu sidaasuu yahay. ilaa iyo intaas mas-uuliyaddaas anaa iska leh oo magaciisa aan ka ahayn shir guddoominta mooshinka aan ka ahayn, anigaa ka mas-uul ah, oo habdhowrayaasha ka mas-uul ah, guddoomiye ku-xigeenada ka mas-uul ah ilaa aakhiri. wax kale oo meesha ku jira ma jiraan. haddii la doonayo arrintan inay nabad ku dhammaato, si dastuuri ay u dhammaato, si sharciga waafaqsan ay u dhammaato, waa in goob oo aan meesha xukuumadda haysan oo magaciisa dhexdhexaad ah lasoo dhigo mooshinka asaga ah, si daahfuran loogu codeeyo, iyadoo ay goobjoog yihiin dhammaan xildhibaanada, culamaa udiinka, dhalinyarada, haweenka, intii markii doorashada dhaceysay iyo xataa kuwan maxaa la yidhahda international community-ga, maxaa la dhahay beesha caalamka ay ka joogaan kulligooda, oo ay fiirinayaan xaq inuu u dhacayo oo meel aan ahayn meeshan hadda ay xukuumadda la wareegto dhexdhexaad ah, in la geeyo, laga codeeyo, loo codeeyo ilaa aakhirihi. taasaan ogolnay. ha soo dhammaystirtaan halka xubin oo ka dhiman. xataa anaa ka baryaaya guddiga joogtada dhammaan xildhibaanada, ma aha qaanuuni, laakiin waxaan diidaa in xasarad siyaasadeed la abuuro daraaddeed mooshinkii ha loo ogolaado. anaa soo wada barbaryaaya dhammaan xildhibaanada. waxaan ka codsanayaa inkastoo uu sharci darro yahay jabay, in la ogolaado hal dhibaan kale inay ku soo daraan saxiixa, la keeno golaha la geeyo, si daafuran oo magaciisi markhaati leh lagu kala baxo. yaan la ceebeyn. golaha shacbigoo ceebooba waa shacbiga soomaaliyeed oo ceebooba. taasaa iga dardaaranah. xildhibaanow waan ku celcelinaya, xildhibaanow jawaari ma aha ujeedo, jawaari waa marinka. waxaa loo dan leeyahay waa golaha shacabka, burburintiisa iyo kala diriddiisa, iyo 3 sano soo socotay in maaragtaa meesha baarlamaanka uusan dhicin sidii lagu sameeyey, sidii baarlamaankii 8aad ku dhacday oo kale lagu dhaco, oo keligeed markaa ay laanfulin iyo dad kale ay meesha iska sii wataan. waxa la doonaya waa intaa. iska ilaasha. aad baad u mahadsantihiin. waa ku kalsoonahay golaha shacabka iyo xubnihiisa in ay maaragtaa si xikmad leh, wadaninimo leh, islaamnimo leh inay maaragtaa arrintaa u dhameeyaan ayaan ka codsanayaa. waa ku celinaa, aniga ma aha ujeeddada, aniga waa marinka. waxa loo socda ujeeddada waa golihiina shacbigoo la kala diro. badbaadso baarlamaankaaga, shacbiga ha ceebay. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.